السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalyaal waa idin salaamay meel kasta dunida ka joogtaan. waa walaashiin Amaal Cooking. waxaa idin leeyahay ramadaan mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal. maasha allah axbaabi muslimiinta inta xanuunsan dhammaan waan u duceynayaa, inta caafimaadsan allah u siyaadiyo. ramadaankiisa ilaahay caafimaad iyo cimri dheer allah noogu gaarsiiyo insha allahu tacaala. maanta waxay noo wadaa gurigaa ku samayso canjeero etoobiyaan. maasha allah waan u xiisay, marka waxaan isir asxaabtaada la wadaag, waa idinla soo wadaag axbaabi waxaan ka samaysanay, qaabka u samaysanay aan isla daawana insha allahu tacaala. fadlan haddaa nagu cusubtay subscribe, haddaa hornoola joogtay aad baad u mahadsan tahay. bismillaah axbaabi, marka hore waxaa inoo soo saarayaa dabka waa hilibkaaga hadduu xoogaha adag yahay gooni u karis uu kugu jilco, waayo hilibkoo adag laguma dari karo suugadii. marka hilibka gooni ayaan dabka usoo saaranayaa, kadib waxaan isla arkaynaa alaabti kale aan u baahnaa aan gooni u karsanaya, kadib isaga dusha ayaan kaga dari doonaa insha allah. axbaabi intuu hilibka dabka ii saaran yahay waxaan sii qasanayaa canjeelo etoobiyaankii gurigaaga ku samaysan kartid insha allahu tacaala. waxaan haysto waa khamiir iyo maxaa la dhihi jiray burki bariiska ahaa, laakiin waxaan rabaa in canjeero madow ka dhigo sida canjeero taafidoo kale. waxaan halkaa ku haystaa bur madow weeye. waxaa kaloon haystaa axbaabi qorfo iyo cusbo iyo biyihii aan ku qasan lahay insha allahu tacaala. intaas ayaan ka sameynayaa biidni illaahi tacaala. waana healthy. waxaan ku daray waa bur madow, laakiin burka madow xoogaha wuxuu leeyahay isheeg waxaa ku badan baalka qashin yar ayaa ku jiro, oo yacni wixii fiberka ku jiro waxaasaan xoogaha ayaan shaandhada kaga shaqshaqi doonaa biidni illaahi tacaala. hadda waxaan ku shubaya waa bariiska shiidnaa weeye. bariiskan shiidan rice flour asoo shiidan soo gatay insha allahu tacaala. halkan etoobiyaanka waxay gadaan 25 kiilo isku xiran, inay kaama gadaya laakiin dukaamada caadiga ka soo gatay. waxaan ku daray marka hore waa khamiirkii bixisada yeasti ama leebata. waxaan ku daray waa qarfa axbaabi aad ayuu u fiican yahay hadduu xabadka ku xanuunayo, hadduu hargab ku hayo aad buu caafimaad badan yahay. marka wixii aad samaysanayso ama cabitaan ha noqdo ama burbur ha noqdo, inta badan ku darso inaad ku darsato isku day insha allahu tacaala. haddana axbaabi waxaa noo soo qaaday waa shaandhadan ayaan ku shaqshaqayaa burka. waxoogaha wuxuu leeyahay qolofkaas ayaan ka saarayaa, waayo canjeerada waa inay smooth noqotaa soo maaha. canjeeradan laakiin xoogaa khamiir u baahanta, waa inaad habeenkii oo kale qabtaa ama 2 maalin camal ay kuu taalaa si indha badan kuugu yeelataa. haddii kaleeto waxay kaa noqonaysaa xoogaa bur yar cayrin ay kaa noqonaysaa insha allahu tacaala. marka ka digaa inay muddo kuu khamiirnaato. axbaabi waan kasoo dhameeyey wixii ku jiray oo qolofka ahaa oo dhan waan kasoo dhameeyey. waxaan rabaa in canjeeradii smooth noqoto. marka waxaan sameynayaa hadda biyaha ayaan kiskis yar ugu darayaa. waxaan rabaa inaan yacni qiyaasto, hadhow ayaa biyo kale extra u baahan doonaa. marka ii khamiirto biyo ayaa dush ka soo mari doono. marka ii khamiirto ayaan, waayo markuu shayga khamiiro xoogaa canjeelada kale oo fixisada lagu daro aan khamiirka caadiga lagu darin, waxay noqonaysaa xoogaha inay isla jiijiidayso kale. kadib biyo yar oo warm ayaa dusha uga dari doonaa. hadda marka aad iyo aad uma jilcin doono, in yaroo qiyaas camal aan ka dhigayaa insha allah. maasha allah axbaabi sidaas ayaan hadda aan ka dhigayaa insha allahu tacaala. qiyaasta sidaas ayaan ka dhigayaa. hadhowna biyo yaroo warm haddaan arki inay xoogaha ay waadna arki doontaan xoogaha way yara adkaan doontaa. wax yaroo biyo ayuu xitaa dusha kaga sii darayaa. alaabtan waxaa la rabaa sida canjeeradeena caadiga inay ka khafiifsan tahay, sida canjeero malawaxdoo kale oo loo jilciyaa. markaysan kaa adkaan, hadday kaa adkaato culays aad ay kaa noqonaysaa. marka qiyaas ka dhigo. bismillaah axbaabi, hadda waxaan sii bilaawanaynaa insha allahu tacaala suugadeenii. basasha waa aragtaan waxaan wataa waa baaquli buuxo. marka waxaa loo baahan yahay suugadan canjeero etoobiyaanka markaa karinaysid waa inay basashaada aad iyo aad u badan tahay. marka horena ha ku darin saliid, waa inaad marka hore iyada kaliya aad guduud ka dhigtaa oo yacni ay baaba'daa. suugadan waxaa loo baahan yahay basasha inay hadhow aysan ka muuqanin, ay basasha dhan ay baaba'do. that's why hadda basashan u hormariyey. basasha ayaan muddo sugayaa ilaa ay ka guduuto. markay guduuto kadib ayaan saliidda ku dari doonaa biidni illaahi tacaala. isla socono axbaabi. hadda waa aragtaan kalarkeeda isu bedelay basashii. waxaa moodaa kalarkeeda xoogaa wuxuu noqday inay isku dhacday, in saliid lagu daro kale isku dhacday.
hadda ayaan ku darsanayaa wax yar oo saliida waa aragtaan guduud ayay noqotay saas ayaa laga rabaa inay ku noqoto guduud hadduu u baahan tahay moo weli ku sii wad insha allahu tacaala waa inay basasha taagtaagan dhankaa dhammaataa insha allahu tacaala ay waa aragtaan hadda xoogaha salka ayay qabsatay saas ayaa looga baahan yahay inay ku noqoto ay shurbad camal ku noqoto kadib waxaan ku darsanaynaa xawaashiyadii weli axbaabii saliidii ayay ku jirtaa hadda waxaan ku darayaa waa basbaas etoobiyaan iyo waxaan ku darayaa xawaaji dhudhuub intaas bes aan spice ku darsanayaa insha allahu tacaala basbaas etoobiyaankan aad ugu badiyey waayo la-aanteedna soconayo marka ciyaalka xitaa way iska cunayaan biyay ku cabayaan aad bay u jecel yihiin canjeela etoobiyaanka iyo suugada way jecel yihiin laakiin waxay iga cuneynin waxyaalaha kale marka maanta wixii kale baytaraafka iyo misrihi iyo wixii idima tusin laakiin intaas ayaan rabinaan idin tuso inta hore axbaabi haddana waxaan ku darsanayaa waa yaanyada way ii shiidan tahay waa yaanya aan soo shiitay biidni illaahi tacaala kadib haddana wax yar ayaa la sugayaa axbaabi waa aragtaan hadda waxaa inoo dhiman step by step inaan ku darsano weeye waxaan ku darsanayo waa yaanya gasac waa yaanyada ama gasaci ku jirta ama bacay ku jirta hadba nooc ayaa loo sameeyaa باذن الله تعالى marka ayada xoogaa test ay siinaysa alaabtan yani thick culays ay ka dhigaysaa inta aan ka arkayna way kuwa lagu daraa marka ayadana waxaan noogu soo daray in qiyaasta hal qaada bis ayaan noogu soo daray axbaabi hadda waxaan ku darayo waa toontii iyo kabsartii toonta ayadii sanjabiil ayaa isku dhex shiidan marka insha allahu tacaala kabsartana waa ii tuman tahay saad u aragtaanba kadib alaabtan xoogaha gacan ku heenaan ku yidhi xalwad la karinayo camalaad moodaa marka insha allahu tacaala sabra saa wax qurux badan u aragtaan axbaabi markay isku duba dhacday alaabtii hilibkeeni inoo karsanaa oo diyaarka ahaa ayaan hadda dusha kaga darayaa saa u aragtaanba alaabtii waxay noqotay alaab maasha allah saliidda aad ku darto dhan ayada soo tufi doonto marka saliidda waan ka wada guri doonaa insha allah sida xalwado kale alaabtan saliidda usoo tufaysa saliidda waa laga guraa iska gur saliidda insha allahu tacaala maasha allah haddana waan daboolayaa bismillahi maasha allah waa aragtaan si ay qurux badnaatay haddana waxaan kusoo darayaa ukuntii axbaabi alaabtii markay saas ugu dhacday hadda ukunta ayaa noogu soo darayaa ukunta hadba intaa doontid aada jeceshahay ayaad ku darsanaysaa axbaabi hadda suugadeeni markan waa diyaar waa maasha allah tabaaraka raxmaan sidaas ayaan ka rabnay oo maasha allah hadda waxaan aadaynaa dhinaca canjeelada axbaabi waa aragtaan canjeelada say indha badan usoo yeelatay sidaas ayaa laga rabaa inay ku noqoto marka hore waa iska fiirinaysaa siday tahay maasha allah waa maasha allah hadda waa inaynan jileec kaa noqonin biyo ah waa inaynan khafiif kaa noqonin indhaheedana waa inuu aada u bataa waayo canjeel etoobiyaan waxaa laga rabaa in indhaheeda uu aada u bato biyo yar ayaan ku daray laakiin fiidiyooga kuma soo darin wax yar oo biyo ayaan ku daray oon ku yara jilciyey weliba axbaabi hadda sida ayaan ugu soo shubayaa waxaan kusoo shubtay waa garaafo yar jeeg yar ayaan kusoo shubtay burkii marka saas ayaan ugu wareejinayaa insha allahu tacaala waa inay xoogaa kuu yar weynaataa inkastoona haysanin dee birta ay ku dubtaan weyn ma haysto laakiin bir xoogaha ballaaran ayaan ku dubanayaa axbaabi haddana waxaan ku shubayaa xabad labaad insha allahu tacaala sida ayaan haddana ugu wareejinayaa iyadana biidni illaahi tacaala saa idin sheegayba wixii weynaa oo lagu shubaya ma haysto waa bir daawo yar oon aada u weynin laakiin ayagana kuwa fidsan oo inta badan lagu karsado sabaayadaha ama ceeshka iyo waxaas loogu talagalay weeye laakiin birta ayagay ku samaystaan oo aadka u weyn ma haysto marka insha allahu tacaala haddana waa isla arkaynaa oo xoogaa laakiin waxaa la rabaa inaad dabka u gaabisid ay cabbaar saarnaato axbaabi waa aragtaan ha daboolin ilaa ay waxan qoyaanka dhan uu ka baaba'o in la daboolo ma aha qoyaankan hore markuu ka baaba'o ayaa la daboolaa insha allahu tacaala laakiin haddaa ku hormarisid iyadoon qoyaanka si fiican ooga baabi'in aada daboolka saartid axbaabi haddaa iyadoo yacni ku qalalin aada daboolka saartid waxay kaa noqonaysaa hadhow qoyaan waayo alaabtan dhinac kale looma rogayo soo maaha marka ha iska daboolin insha allahu tacaala waa inay kuu noqotaa
maxaa la dhihi jiray marka hore dusha ay qaleelkaaga noqoto haddana xabad kale ayaan kusoo shubanaynaa maasha allah axbaabi haddana xabad kale ayaan noogu soo shubayaa biidni illaahi tacaalaa axbaabi xabadii kalena saas ayay noo noqotay saas ayaan ooga qaadayaa iyadana haddana axbaabi waxaa noogu soo shubayaa waa xabadii saddexaad insha allahu tacaalaa waa aragtaan indhahaas faraha badan ayaa loo baahan yahay say kugu noqoto khafiif axbaabi waxaa samaysaa dhinacii waxa iga yaala idima tusin waxa iga yaalo maro yar oo xabadii aan ka qaadaba aan sii saarayo oo marada saarayo waad aragtaan ayagaba markay xitaa ay isu wareejinayaan labada dukaan maraa geb lagu siiyaa marka mara geb ku sii insha allah waa waxaan saliid la marinayn waa waxa dhinac kale loo rogaynin marka waa inaan marada aad la daba socotaa biidni illaahi tacaala ama weel daboolan aa ku ridaa siiba saxan fidsan iyo maro yar ee iga saaraan dhaqankooda maasha allah axbaabi waa tii u dambeysay oon maanta ugu talagalay inaan isla aragno qaabka ay noogu soo baxayso canjeeladan sida taafida camal aan ka dhigay oo burka madow maasha allah tabaaraka araxmaan axbaabi alaabtaan ugu talagalay maanta inaan idinla wadaago oo qayb kamid ahayd afurkayga qaybtii 7 insha allahu tacaala waa suugadaas yarta iyo canjeeladaas biidni illah burka madow aan ka sameynay haddaa bur taafi aada haysanin burka guriga ku sameyso burka madow iyo qarfa yar ayaa ku darsanaysaa iyo bariiska burka insha allahu tacaala dukaamada hindida ayaa lagu gadaa bariiska burka haddaad ka weyda meelaha kale waayo midka aa shiiday soft side ma noqonayo intaas ayaa idinkaga tagayaa waa walaashin amaal cooking wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu